شغاله meesha la فريزينيس معاي شغاله meesha ها أبو شغال ما نكردي إله You guys are freaking disgusting. Wallahi, isku wada midaad tihiin. Nyinyi wote ni ng'ombe. maanta xaaladda okay ma ahan geel plus geel isu koosto xayawaan plus dhar loo geliyay isu koosto isma dhaanto yeah I'm talking to these people isma dhaanto maba is dhaamaanbo as you can see dad waa weyn sida geel ku weyn ilaa weyn waaxid dhar loo soo geliyay qol la isugu soo aruuri then what do you expected أبو شغال ما نكردي waxa ugu sii daran adigoo og inaad tahay madow oo qof kale madow ah ku sii sheegaysid هذا نوكل ما أنت بتخش أروز أنا عمر الدينه naagtan ajaanibta madowda are you fucking kidding with me guys wallahi dadkan jaahilnimada meesha ka gaarin so ma people hadal idin kugu daal waxa la soo diray these people saa halkan ka wada aragtan videogooda waa shidi doona laakiin these people wallahi alcadiim sa umalayna maahan ani waxa u haysta dad oo aan iska xushmay jiro dhalinyaro oo very talented oo horumar wacan sameeynayo but then videoga marka daawaday seriously aniga Kenya ku soo koray waa ku noolay waqti badan deganay dadka sida loola dhaqmo waa garanaya ba adigoo og inaad wadanka degan tahay qof wadanka u dhashay oo xuquuqdiisa leh at the same time oo ku soo dhaweeyay si sharaf kula dhaqmay in aad ugu Soomaalida markuu leeyahay cunsuriyaal way xaqiiqada dhabta especially these people tusaale ka qaato so video waan rabaa inaan yara daawano dadka la dhahay isma dhaanta ayaa wixii keenay hal gabare at least dad badan oo oo Kenyan haday soo wada lahayn waxbay ahaaleed laakiin gabadho iimeeqay meesha ku fadhiyaan come on man dameer camal meesha u buuxan sanadkan wax ma qaraac laakiin dadkan qaraacitaankooda waajib waan xalaal so my beautiful people you gonna watch ya hadal idin ku daalin عمر الدينه ها محمد شغاله meesha la فريزينيس معاي شغاله meesha ها أبو شغال ما نكردي إله كان مسخش What the hell is that? shaqaalaha meesha friisanaysa maxaa way? Ma ka taqaanaa dad degan guri oo 5 star at the same time waxa kaaga daran mid jikada ku jirto oo dhees. Abo shaqaalaha ma nakan. First of all, let me explain to you my beautiful people. This is not fucking prank. Prank ma ahna at all. Waa wax la isla wada ogyahay. Waana loogu talagalay. Maskiintan waxay iska heeda u malaynaya Kenya waa wada ogtiin. Isku wada jeeb ma ahan. Waxa laga yaabaa family dhan in oo ku nool yahay 100 shilin oo Kenya ee maalintii. So waxa laga yaabaa maskiintan dadkii oo kibrawada ahayd iska tabar yareed in ay soo qabteen ay dhaheen kala video na la sameeyay lacag ku siinayna. Maskaxdaas ayay rabaan markii inay noo gadaan. Second of all waxa horta ceeb adigoo qof madow Afrikaan in aad qof kale aad wadankiisa marti ku tahay oo ku soo dhaweeyay ku wanaajiyay oo madow kule aad iska dhigtid qof high class balfeeri high class iyo guriga oo 10 lagu degan yahay at the same time le shaqaalaha oo ka kursiga ku fariisinaysa qaraariya so let's go my beautiful people si soconayna شقلي نوع عنا دي فساد قولي بوحي هكذا والفضل الله والله شغاله فadhiga la fariisinayna يا برايب no waxa lagu leeyahay shaqaalaha fadhiga la fariisinayo so everyone wuxuu ka hadlayaa shaqaale so that means in la isla wada ogyahay haddii san la isla wada ogeyn focus kama wada fuuli lahayn gabadhaas dad baa wax kale ku hadli lahay dad baa ku mashquul lahay teleefanadooda ama meel kale ku maqan laakiin this is not freaking prank umada waxa ugu sheekayeensa second of all you guys are freaking disgusting wallahi isku wada midaad tihiin nyinyi wote ni ng'ombe seriously so let's go مسديسنا نيو أنا قو أنا وحن جاري إنا ما تقفتان عن أروسه واه إذا محسود دبلني سنة واه محسود دبلني سنة halowda boodaya wuxuu yiri kaliya inaan qoftan aroos taasna haduu ugu moosan horeen gabdho badan oo Soomaaliya waxay qabaan Nigerian qabo Jamaican qabo Kenyan qabo wiilal badan oo Soomaaliya waxay qabaan Kenyan ay qabaan Jamaican ay qabaan Nigerian qabo this is not something new what kind of reaction is that this is actually fake prank let's go so in ita fake prank waxa ku sheegayso qofka istuurayo too much what too much why second of all I'm really sorry qofka miskiinta oo la soo lugooyo oo meesha la keenay lagu bahdilayo gabar Soomaali hadii lagu sameeyay sidaas oo kale Soomaalidu idil ka cilaheed xaqiiqada marka laga hadlo ilaahayna ma dhihin isbahdilo ilaahayna ma dhihin isxumeeyo aniga dhalinyarta ma garanayn ha iga xanaaqaano ama haysan iga xanaaq I don't give a fly runta marka ka hadlo laga xaqiiqada jirta waxa in la isku fiirsanaynin qaladka ay sameeyayeen ay tahay qalad weyn oo laga galo bini'aadanimadu hadii wadamadan ku noolaalahaayeen ama ay ogaalahaayeen Kenyaanka ila nool yihiin in gabadha sidaas lagu
samaynayo obviously jeelkay gali lahaan especially Bangani ugu dhow Bangani gali lahaayeen so my beautiful people aniga dameera ku sii daawada waxaan malihi so these people runta loo sheego Soomaaliya nahay waa isku sacabatumna meelaha qaldan isugu sacabatumna laakiin xaqiiqada marka laga hadlo ma ahan mid la isku fiirsan karo mid aan kale because bari adeeg kugu dhici kartaa walaashay ku dhici kartaa walaalka ku dhici karaa so cunsurinimadu ma ahan wax wanaagsan isma dhaanto I'm telling you the truth waxa samaysan ma ahan wax qof bina aadane oo ku dareemayo farxad oo ku dareema ama oo idinku taageera taas waa ku qaldanteen qaladkiina dib isugu noqdo isu soo saxo so my beautiful people see you the next episode